السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هي دمانتين سود دوادا ميل كستا جوجتين ولاشين فاطمة هديتها هاي مركي كوغوريس او جنال كينا عرفتا سبسكرايب نوصار ميكشو إنا كان بلال كتاب سي او نقطي داودا مركزتا نوغو حيران والله قاليغا وحاربا إن آن عود ير آيدي مقاشيو كليب هانا أبوكر runtii marka hore codka idin maqashiinaya kadibna de waxaan ka dhihi karnaa ka dhaheena hana dadka qaar waxay dhahaan hana maxaa lagu haastaa mise maxaa looga hadlaa hana waxyaalaha laga hadlo waxyaalaha iyada afkeeda iyo actionkeeda aan ka aragna waayo saad u fahanteembo marka insha Allah aan isla dhageysano waxa ay leedahay qofkii yaqaano YouTube كيدا وكسر شيء هذا هالكان كشيء عشر كان يوتيوب مسوي جلد دورة هالكان بوكوتشي الدورة إن شاء الله بإذن الله كان فيسبوك أقول لك دورة وحان هيا وحان ليسي هايوكان وحان ليسي عنقي أصومالي هي ليسي مات عنقي وحو شراء مونا ورانك نعمات ورانك معاني سور دوار عنقي وحو شراء سدح بلوغ بوشراء عنق سدح بلوغ بلغني هاي أوكي تريمان كودلن yahay maxba soo dhawo cunuga tirimaan koodalan yahay cunuga una laga soo qaaday mar ilaa laga soo qaaday qora aniga isla shaqeyna ay la soo xiriirto cadaan ah oo Suudaan joogto nalastaamay iyo cunuga ala laysi marka cunuga saddex bilood buu jira waxaan rabaa qof Soomaali ah oo Suudaan joogo oo Khartoum runtii cunuga waa la isiyay iyo cunuga waa la soo helay kala saar guys runtii horta ilmo la isa siiyo ma jirto ilmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa bixiyo Ilaaha dad siiyo qof bini aadan oo ilmo qof siiyo ma lahan way fahanteena oo maleeyaa hana hadalkeeda meel waxay ku leedahay actionkeeda indhaheeda ka dareemi waxyaalaha ay ka hadlayso hadalka inuusan islahayn mar waxay leedahay cunuga la isiyay haddana waxay leedahay dad aan isla shaqeyno oo jooga Suudaan marka meeshaas waxay idinka cadaani karto in ay hana la shaqeysato umad ilmaha ku shaqale waa i fahanteena oo maleeyaa say ugu shaqaleeyihiin ugu shaqale marka oo ilmaha ka shaqeystaan midda kale ta cunuga la isiyay cunug meeqa jir waayo maalin oo tii ay dhahaysay cunug oo 8 sano miya meelahaas qof ii hayaan raadinaya again cunugan waa few months kali uu jira baby yar waayo waa newborn baby waxa ay leedahay waa la isiyay marka Soomaaliyeey ma annaga waalan maso say wax u jiraan ya دارها laga furayo oo wax ka hagaagayaan 3 bilood buu jira waa nimbarya qofkii yaqaan 3 bilood kaliya uu jiray tir cunugan waxa ay raadinaysaa qof u hayo 3daas bilood intee loo soo wadaa ilmaha la soo daad gureynayo oo laga soo qaadayo qurbaha laga soo qaadayo wadankii wadamadan loo soo wada intee loo soo wadaa yesterday sameeyeen wixii daraad sameeyeen waxaan dhageysanayna cunug 8 jir ah ay lahayd qof ii hayaan raadinaya yeah and today is cunug 3 bilood jiro yeah runtii waxaan ogahay ilmaha inaan la soo qaadi karin without parentigooda haddii indhaha ilmaha uu yahay under age hadduu yahay 18 wixii ka yar lama soo qaadi karo waana sharci u yaalo waxaa jirto cunuga wax ii koriyo oo Suudaan jooga ii soo shiida qofa buruqa gadaal ka leeyahay I think baashi dadka caawayayna gadaal lagu caawaya badcodka okay no Suudaan Khartoum no sheekadaan si fiican u wad ana cunuga halaykeena kuma dhihin ha wax kan afar bring that ha bring sa the kids no marka waxa idin sheegay waxa waaye qofkii yaqaano Suudaan qofka yaqaana Khartoum dadka yaqaana listen please Khartoum ka taqaana Suudaan Khartoum tad ma ka taqaana ay leedahay qofkii aqaana please leedahay cunug
saddex bilood kali dhalan waa umul cunug yaroo saddex bilood dhalan qof loo raadinayo guys haye guri ma joogtaa laakiin qoraalkiina raba istaag buu qoraalkiina ila noqday waxaan buruqda may joojiyaan laakiin wax markay duuwaayaan haye وزيبا كسلام ها أنا هروسوق البارك هذا يسوسعي فيسبوك ما يلو بدهم بس حاول صدوا وعليكم السلام يسوي يدور علا ما يهلا منو جمال علا ما يهلا سؤال هاي عنق مير علا laga helay leedahay dada su'aalo soo weydiinayo hadii wax iskaga fujiseerto Soomaan answer ku inay siisaa su'aalaha iga dhaafay tiri waa maqashiin amlaya su'aalaha iga dhaafa ya آخرات الجاية عنق أنا ليسي عنقي wax iisi hay mi sheekatini war cunug easygaas la isku siinaa intee ku aragna cunug waa la soo helay iyo su'aalaha iga daaya iyo cunuga wax ii hayaan rabaa hanoo cunug yaa ku siiyay yaa kuu saxiixay waraaqaha lagugu saxiixay away haddii hataa hooyada adoption way bixiyaan haddii uu jiro oo soo adhabta garaysta hataa away yaa dhalay hooyadii dhashay away kuwii hore yaa dhalay ya midda kaleeto cunug saa idiin sheegaba yar oon waalidkii la soconin lama soo dhoofini karo yes see lagu soo dhoofini waxaa jirta waxaan ogahay 1999kii ani iyo walaashayda adiga yar walaalkii aan kula qornayn responsor aan kula jirnay labadeynaba under age aan ahayn labadeyna waana laga reebo walaalkii ya imtixaanka markiina aan maraynay safaarad Nairobi labadeyna waana lagu reebay waxaa la gabdhaha mas-uulka ma noqoni kartid way yaryar yihiin ya waalidkooda loogu soo daro marka waxaan ogahay inaysan ilmo waalidkii la soconin 8 sano iyo cunug dhowr bilood dhalan iyo waalidiintii dhalan aan la soconin see lagu soo dhoofinaa ya markay lahaa taasaan garan lahay midda kale intee loo wadaa ilmaha intaas leeg intee loo wadaa away waalidkii dhalay ya ilmaha runtii ma ahan xoolo neef aryaa la isa siiyaa waa maqli jirnay neef hebo la siiya waa maqli jirnay lacagaa la isa siiyaa dahabaa la isa siiyaa laakiinse ilmo ilaahay bixiyo ma ogi cid isa siisa ma lahan ya ilmo waan dhalee hoo cid ku dhehayso anaa kuu dhalee hoo ma jirto hadduu nin kastaba easygaas ilmo ku heli karo wixii waayo nobody ooba dhalmo iyo waxaas ku fikir lahaa malaha soo ma ahan ilmaaba iska soo wadwadani lahayd oo iska soo aruursani lahayd marka ilmo cunugan gabadhan ay mar kastaba leedahay cunugaa la isiiye ilmaha I know we know Soomaalida say u ilmo jecel yihiin owlaadooda ay ugu jecel yihiin but ilmahan hana la iska siinayo 8 jirkii iyo cunuga umusha iyo la siinayo waalidkii dhalay away ya neefka xoolaha waa markii qof la siinayo qof leeyahay oo xaradiisa uu ka soo baxaa ilmahan dadka la iska siinayo dadkii dhalay away mase maxay yihiin Soomaaliyeed ma annagaa waalan maso maxaa khaldan aniga waan garan leeyahay xaaladda say u socoto waan garani leeyahay ya meelay wax ka socdaan meelay wax ka socdaan waan garani leeyahay marka ilaahay goyna waxidka ahaa ummadda xaqa allaha tuso wixii waaye wax aad iyo aad looga xumaado inaan everyday maqleeno ilmo yaryar cunug yaraa la isiiyey guriha la ii raadiyo mid kalaa la isiiyey yaa u dhiibtaa yaa ii haynaayo sidii dooradii oo kaleeto marka I know dad badanaa wixii waayo dad badanaa sida annaga u yaaban oo kaleeto u yaaban oo afka kala haya laakiinse waxaan leenahay ilaahay ummadda xaqa ha tuso hanana waxaan leenahay walaashay ilmahan
dee intay iska yaalyaalaan intee la iska soo aruursanayaa oo ilmaha laga soo aruursanayaa baddadaaba ilma la-aan haba soo qaqaataan adiga meesha aad ilmaha kusoo aragtay iska yaalyaalaan dadkoo lasoo sheergaree taasaan ku leeyahay marka hooyooyinka soomaalina waxaan leeyahay meel kasta aad joogtiin ilmaha laga dadaalo ilmaha wixii waaye ilaah ayaa bixiyo ilmaha wax kastaba ayagaa ka qaalsan cunug ma jiro meel iska yaalla haddii haataa ayuusan hooye aabi isqaba dhexdooda ku dhalanin hooyuu leeyahay cunuga abtiyuu leeyahay waa i fahanteena umaleeya marka cunug kastana wuxuu xaq u leeyahay cunuga kale si nolosha uu haastoo kaleetu isagana xaq u leeyahay oo nolol fiican inuu ku noolaado laakiinse waxaan garan lahay ilmahan dayacan oo la isa sisiinayo meelaha iska yaalaan oo la iska soo qaqaadanayo la sheegaayo mase waxan waa wax just a few hours lagu raadsanayo ani ilaa hadeertan waan garan lahay ya marka hooyooyinka waxaan leeyahay ilmihiin ilaashada annaga kuwa qurbo joogta ilmaha waawana la raaciyo ayagaaba shaqo noo ah kuwa waddankii joogowna waxaan leenahay ilmaha ilaaliya ilaahay goynaa xidka ahana hana wada ilaashado ilmahana ha laga dadaalo kuwa qurbaha jooga iyo kuwa dalka joogaba ilmaha waxaan leeyahay ha laga dadaalo hooyo kasto ilmaha waxa ay kula joogaan waa wax yar marka ilmaha laga dadaalaan leeyahay hanana waxaan leeyahay dee cunugan waa la isiye aad leedahay walaaley ilmahan la iska bibixinaayo bad ummadda la qaybso dad badan hooyooyin badan oo keligood ahaa jiro oon ilmana haysanin marka ilmaha meesha aad leedahay waan ka soo qaatay waa la isiyey iyo bal kuwa ayagana ay koriyaan mase ay daryeelaan bal meelahan adiga ka soo xaxaabsanaysid ummadda la qaybso bal yaa la qaybso si aan u wada ogaano oon annagana kuugu dambaabin marka aad iyo aad idiin salaamay assalaamu calaykum